madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wareegto uu maanta soo saaray uu ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis waxaana ay wareegtada madaxweynuhu u dhignaa sidan wareegta madaxweyne ujeedada xilka qaadis ku socota Maxamuud Saleebaan Ciise Mingisti wakiilkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Shiinaha ku socota Maxamed Cabdikariim Cumar Ismaaciil safarka xogeenkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya og wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sumadiisa tahay in uu meerto noqdo oo loo igmado hadba cidii hanan karta sidaas darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idka qaado xilalkaad qaranka u hayseen waxaana aan idka mahad celinay muddadii aad hayseen xilalka qaranka ee kor ku xusan magacaabis markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoonta kartida iyo waayo aragnimada markaan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan 1 Maxamuud Xaamud Cumar gudoomiyaha gobolka Badhan 2 Cabdiraxmaan Axmed Muuse gudoomiyaha xigeenka gobolka Badhan 3 Awil Ibraahim Cali waxaa loo magacaabay wakiilka xafiiska ganacsiga Soomaaliland u qaabilsan dalka Shiinaha